الله أون حريسته وحا مانتا مقالة مقدشة لقوها الشيخ عبد الشيخ أحمد أبو بكر أو كمدها علماء الدين كوقوة وين علماء الصومالي ذا مرحوم شيخ عبد الشيخ أحمد أبو بكر أيا لقوها سي قبورها مسجد كاللغو مقعدري مسجد الشيخ عبد كويا لدقمة ورطة نبضة xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya culimo u diinka ugu caansan wadanka xirtii uu sheekha soo waxbaray eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay sheekha ayaa ka qayb galay aaska Sheekh Cabdi Sheekh Axmed oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho Dr. Faaraxay oo kamid ah ehelada Sheekh Cabdi Sheekh Axmed ayaa ka hadlay taariikhda sheekha wuxuu kaloo sheekha ka soo baxay sheekhi la dhihi jiray Sheekh Cali Cambarre waxa mashaayikhiisa kamid ahaa Sheekh Maxamed Faqa Yuusuf شيخ تلاميذ بدن أيها كبحذ تلاميذ الشيخ كبحذ واحد كمده أو دبيرها علوم الدين كصومالي وذكرنا يعني شيخ محمود عبد الله عريف شيخ عثمان شيخ معلم نور وحاكلوا كمده شيخ اللي شيخ محمد بيت وحاكمده شيخ عبد الله منهاج وحاكمده شيخ محمد الدين حسن أيان وتلاميذ كبحذ الشيخ عبد النور شيخ عبد النور وحوا شيخ آد ومسوا كفاحي كدين الإسلام وحونا هار سرك جاري إنه Soomaali oo dhan oo kala dagaalamo waxyaalaha maanta ay Soomaalida la dagaalamayaan ayuu asiga ko dadkii la dagaalamay ayuu ahaa xildhibaanada Cabdiqaadir Maxamed Aadan Sandheere iyo xildhibaan Khaliif ayaa ka hadlay aaska Allah u naxariistay Sheekh Cabdi Sheekh Axmed oo maanta Muqdisho lagu aasay ilaahay waxaan uga baryaynaa Sheekh Cabdi Sheekh Axmed Abubakar ilaahay inuu jannadiisiyo Sheekh Cabdi kaliya ma ahayn Sheekh toddobaatan sano 8 sano dadka wax barayay Sheekh Cabdi wuxuu kayaan u ahaa oday iyo dadka muslimiinta oo dhan oo cidii dhibaato haysa ay u timaado Sheekh Cabdi waa la tabi doonaa ilaahay jannadina xariista hasiyo Sheekh Cabdi Sheekhaal ilaahay jannada ka waraabsho sabir iyo iimaan Allah ka siiyo heeradii uu ka tagay gaar ahaan xaasaskiisii iyo caruurtii uu ka tagay ilaahay sabir ka siiyo sabir ilaahay ka siiyo sunno wal jamaaca sabir ilaahay ka siiyo Soomaalida oo dhan iyo dadkii uu waxbaray sheekho weyn oo caalin oo ahaa ugu dambeyntii culimo diinka Soomaaliyeed ee ka qayb galay aaska Sheekh Cabdi ayaa dhankooda ka tacsiyay geerida sheekha marka insha Allah ta'ala ilaahay ha u naxariisto sheekha wuxuu ahaa sheekh maaragtay hadii ilaahay ku idmo darsiga ahay sheekh weyn oo mudarrisa wuxuu ahay maaragtay mashaayikhdii waaweyneed sheekh la soo kulmay oo ka soo qaada diinka wuxuu ahay maaragtay sheekh aad maaragtay diinka u faafi jiray xaqa si cad u daahiri jiray oo la yakhaafu fillahi lawmata laa'im ahayuu ahay hadii ilaahay ku idmo wuxuu ahay fikradaha khalkhaldan dadka wado oo diinka xaqiisa ah dad oo sheekh ka soo horjeedo oo aad ula dagaalamo ahay Maxamed Cali Weheliye Universal TV magaalada Muqdisho